inkastoon god laga baaqsanayn geda kastoon gaarno aabow geeridaadii dhulka gabal banaanaaday oo garabkiian waayow maxan geliima ku baahday adduunyahaagyawaa amarii bisheena wahadkooma reeba amarii bisheena ixsaankaagaa jannays leh ogaantaadaa wanaag leh midkaan kuu gudin abaalka ayuunbaa ehelunaara haddaan axad tabay adduunka hooyoy adiga u horeeya iilariirigii gabrigii ku korii ilaahow anfur iridoo jannaadii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. soo dhawaada saaxiibayaal, waa mar kale iyo muuqaal kale. intiinii inala socotay waxaa taxane inoo ah aan ka soo hadalnay suugaanta iyo nolosha aadanaha, inagoo soo qaadanay dhowr mowduuc oo muhiim u ah nolosha aadanaha iyo waxa ay suugaantu ka tiri. intii inagu cusubna si aan isula qabsanno bal ku noqda muuqaaladeennii hore aan kaga hadalnay suugaanta iyo waxa ay nolosha ka tiri. mar allaale marka aad maqasho ereyga nolol waxaa ku lamaanan oon ka harin ereyga geeri, taasoona ah masiibada ugu weyn ee aadanaha ku haleesha ifka korkiisa, haba kala darraato oo kala xanuun badnaata hadduu ilaahay idmo maanta waxaan isla qaadan doonaa aan isla qaada dhigi doonaa waxa ay sugaanyahanadeennu ka dhaheen geerida, maadaama ay tahay ajal innagan aan muslim nahay ku rumaysannahay sideeda. haddana qof kastaa marka ay gaarto isagoo og oo dareensan in alla xaggii ay ka ahaatay, haddana waxay ku reebtaa xanuun iyo urugo uurku taalo aanu xamili karin. sugaanyahanadeena oo ku caan ahaa inay ka hadlaan wax kasta oo nolosheenna quseeya ama wax kasta oo ifkan inagu haleela ka hadla, ayaa maanta waxaa idiin soo rujin doonaa dhowr suugaan oo ka hadlaya mowduuca kan maanta oo nagu magac darnay baroor diiqa iyo suugaanta Soomaalida. hal abuuradeenna oo ku taataagsada wax kasta oo inala yaala oo saameyn inagu leh. soo qaadan doonaa dhowrka suugaan, dhowrka maanso aan isleenahay waa kuwa ugu mudan in ummadda lala wadaago, inagoo weliba kuwa aan soo qaadanayno qaarkood ay yihiin kuwa aan hore loo duubin iyo kuwa aan caan ka noqon bulshada dhexdeeda. waxaan ka tegi doonaa suugaanta baroor diiqa ah ay dadka wada yaqaanaan, maxaa yeelay Soomaali waxay tiraa war la qabaa xiisa ma leh. ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay ee muslima, gaar ahaan intii aan naqaanay, ehelkeenna ahaa, ee saaxiibadeen ahaa, ee nolosheenna saameynta wanaagsan ku lahaa, inagoo u ducaynayna qof kasta oo muslima tawxiidka ku dhinta. suugaantaan soo qaadanayna waxaan ku horeynaynaa tii u dambeysay ee la tiriyey toddobaadkan gudihiisa. waxaa tiriyey maansadan abwaan cabdirashiid cabdulaahi cali shimeer guurow. waxa uu ka tiriyey geeridii aabihii oo uu aad u jeclaa, ilaahay ha u naxariistay adeerkay cabdulaahi cali. abwaanka maansidiisa waxa uu u qeybiyey ilaa 3 qeybood. qeybta hore oo uu ku caddeeyey addoonnimadiisa iyo iimaankiisa oo uu rumaysan yahay ajasha iyo qadarta ilaahay. qeybta dhexe oo kaga hadlay isagoo intaas dareensan oo og haddana inuu dareemayo laabhur iyo gocosho. qeyb dambana waxa uu ku khatimay duco oo kalka hore naftiisu uu ducaystay inuu ilaahay qalbigii aga reebo, deetana wuxuu u duceeyey ehelkii oo dhan inuu ilaahay samir iyo iimaanka siiyo. tan u dambaysaana waxa uu u duceeyey adeer cabdulaahi cali. abwaanka waxau maansidiisa ku leeyahay: aa kay jinaad ifka ku guuray aakari an guuri, islaama ahaa iimangaa lahaa ajala ogaa, amooshe inii haqetaa had an hiraanee ogaa, hatana ishaayo waysanaa eebow ilaahow uurka niingabooji, iil ariirigii gabrigii ku kori ilaahow anfur iridoo jannaadii. sidaas ayuu kaga baxay hal abuur shimeer guurow. waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu inaga oo dhan laabta inoo qaboojiyo, intii dhimatay oo dhanna oo adeerkee u dambeeyey ilaahay ha u naxariiso. waxaan ku xigsiin doonaa maanso oo uu leeyahay hal abuur Zikriya Xaaji Nuur Tooxow, taasoo isagana uu ugu baroor diiqay
hooyadii ilaahay ha u naxariistee oo aad u jeclaa. Abwaanka maansidiisa waxa uu kaga hadlay abaalka ay hooyo ku leedahay ubadkeeda iyo dhibta ay la marto hooyo kasta ubadkeeda. Waxa uu abwaanku qiray dhibaatada ay caruurta ku sababaan hooyooyinka, taasoo ah xambaaristii, uur ku qaadistii iyo dhib kastoo ay la maraan ubadka, isagoo ka abaal celiyay weliba. Abwaanka ayaa maansidan ugu magac daray Hilow iyo Xiiso, taasoo uu ku cadeynayo in ay hooyadii tahay ruuxa ugu horeeya oo noloshiisa tabitaanka qof la tabaa uu tabayo. Maansidan sharaxaad laguma koobi karo oo waxaan si toos idin taabsiin doonaa tuducyada iyo beedadka, taasoo ogahay inay saameyn doonto qof kasta oo mowduucaasi uu quseeyo. Waxa abwaanka leeyahay: adigaa uurka igu qaaday, anigaa oofaha ku buuxshay, adigaa arxan ii xambaaray, anigaa adimada ku daalshay, adigaa igula fooshay, anigaa dhiigaa aloolshay, adigaa ilinkan adduunka ifkaan ku imaaday maanta, adigaa sababteed lahaaday oo Allah iga kaa abuuray, adigaa saqda dhexe alleylki haddaan soo ooyo goorka, anigoo duray iyo xumaysan adaa ilin ila baroorta, adigaa anshaxiyo asluubta, akhlaaqdiyo dhaqan wanaagga, aqoontiyo darajadayda addoomuhu igu sharfaayo, adigaa igu soo abaabshay, ixsaankaagaa jannays leh, ogaantaadaa wanaag leh, midkaan kuu gudin abaalka ayuunbaa ehlu naara, midkaan kuu gudin abaalka ayuunbaa ehlu naara, haddaan axad tabay adduunka hooyoy adiga u horeeya. Ilaahay ha u naxariisto abwaanka hooyadii iyo dhammaan hooyooyinkii muslimiinta ah ee geeriyooday. Waxaan raacin doonaa maanso uu leeyahay Tarash, taasoo ugu baroor diiqay in dhakhtara oo ay Soomaalida aad u jecelayd oo la dilay. Dhakhtarkaas geeridiisa ay Soomaali oo dhan ka gilgilatay ayuu abwaanka dareenka ummadda ku soo koobay maansadatan. Waxa uu leeyahay: adduunyaha al-shawaa amar eebbasheenaaw ahadkoo mareebaaw, isgoowagii baa ifka roogu waayey in nafleeba moodaa, alla foolshaymaa in kaleeba tabaasi, ajal ma dhaafana amuushahad ilaahaynii hukumi inkastoo etaa geeki ii deyma maansadan oo aad u dheer, laakiin meerisidan aan soo qaadanay wuxuu hal abuurka ku sheegayaa in geeri ay lama dhaafaan tahay, ilaahayna uu adanaha u qadaro, saasna lagu ogsoon yahay, iyadoo weliba la ogsoon yahayna haddana aan la is celin karinoo qofkii ay saamaysa ama ay taabataa geeri uu in muddo ah saameyn ku reebto. Wuxuu kaloo abwaanku sheegay in ilaahay mooye axad kale adduunkan uu ku hari doonin. Uu yidhi in nafleeba tabaasi waa la dhiman jiray, awalaa la dhiman jiray, isagoo weliba sheegay inuu Nabi Maxamed ba uu dhintay. Isgoowagii baa ifka roogu waayey marka uu leeyahay wuxuu kaga jeedaa Nabi Maxamed baa noolaan lahaa haddii cidi dunidan baaqi ku ahaan lahayd. Waana kelimadaas ninkaas u isticmaalay sugaantaas aayad quraana iyo axaadiis iyo culimada hadaladooda ay dadka kaga baraarujiyaan urugada iyo baroorta geerida kadib, taasoo tusaale fiican u ah muslimiinta in axadna uu dunidatan uuna saarnaan doonin. Waxaa maanse kale ku jirtay: haddii mowdku cid seegi sayidkeenii Maxamed baan ka socdaynay, nabiyullaahi Maxamed yaa noolaan lahaa haddii qof uu dunidan sii saarnaan lahaa. Waxaa la inoogu sheegayaa xaq ahaanshaha iyo xaqiiqanimada iyo ogaanshaha la ogyahay in qof kasta oo nool geeri u dambayso. Ilaahay inoo naxariisto oo qaatimada ha inoo suubiyo. Waxaan ku soo gabagabeynayaa sugaan ay leedahay Safiyo Tusmo, taasoo ugu baroor diiqday aabaheed oo geeriyooday. Ilaahay ha u naxariistee. Safiyo waxay maansadeeda ku leedahay: inkastoo god laga baaqsanayn geda kastoon joogno, aabow geeridaadii dhulkaa gabal banaanaaday, aabow gabood baad ahay lagu gamaayaaye, dabadaa maxaa gocon xuniyo guni i weytayse, garabkii aan waayayow maxaan gelimo kuu baahday. Safiyo maansadan ku soo koobtay intaas waxa ay ku sheegtay oo ay kaga hadashay aabaheed galbashadiisa iyo geeridiisa inay u ahayd
gabal u dumay iyo dhulkoo gabal la waayey. Waxa ay sheegtay inuu aabaheed u ahaa garab ay gargaarsan jirtay oo weytidiisa iyo maaragtay bannayntiisa kaalintiisa ay ku noqotay ay u jabisay gun ay u jabisay. maxaa bocon xuniyo guni i weytaysay marka ay leedahay. waxa ay sheegaysaa in maqnaanshaha aabaheed ka maqan yahay nolosheeda ay u nugleysay dad ayaan u nuglaan lahayn. ilaahay u naxariisto dhammaan intii muslime dhimatay, waalid, walaal, gacal iyo saaxiib. inta noolna ilaahay khaatimada ha inoo suubiyo. mawduuceennii kaga hadlaynay baroodiiqda iyo suugaanta Soomaalida halkaas ayaan ku soo koobaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.